tahay qof halka soo istaago oo baa garan awalan ilaahay baa mahad iska leh oo madasha quruxda badan nagu kulmiyay waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan marti sharaftayda oo leeyahay waqtigiina aan noo hurtaan aad baad ugu mahadsantiin waxaan halkan mahad celin aad iyo aad u qaali uga dirayaa macalinkayga daadiyahayga barahayga macalin sayid maxamed cabdullaah xasan hal mar aynu wada saabina macalinkeena gabadhiyada yaaban bay gurigeeda tagtay hooyadeeda baadiye joogtay la hadashay qisadii bay uga sheekaysay islaanta waxay ku tiri hooyo iska daawadni weyn oo bilaa go'aan marka waxaan idin kula dardaarmayaa inaad iska daysaan habeenkii soo jeedka faraha badan war inaad iska daysaan Facebook oo inaydnan haddaynan social media iska daynin intiisa kale inaad TikTok iska daysaan magaabada hashaada ka roon may dhanaan kale magaabada hashaada ka roon may dhanaan kale war waxaad qabsatid eed gacantaada ku qabsatid ayuunba wax ku noqonaya College-ka Global Health Science ayaa xaflad qalin bedelasho u qabtay dufcaddii saddexaad ee dhamaysata sanadkan oo bartay koorsooyin kala duwan kuwaas oo kala ah caafimaadka xisaabta iyo luqadda Ingiriiska Global College sanadkii saddexaad ayuu soo saaray arday dhamaysatay maadooyin tayada barasho kor loo qaaday kuwaas oo ay muhiim u tahay barashadooda ardayda deegaanka iyo dunidaba munaasabad miiqaamkeedu aad u sareeyo ayaa lagu qabtay ardayda qalin bedelanaysa Hotel Rice oo ku yaala bariga magaalada Laascaanood waxaana munaasabada iyo farxadda ardayda kala soo qayb galay marka laga yimaado maamulka iyo macallimiinta college-ka Global waalidiinta ardayda qalin bedelanaysa culimada iyo cuqaasha deegaanka qaar kamid ah macallimiinta jaamacadaha Alpha iyo Ilees University ardadii hore uga aflaxday isla college-ka oo soo bandhigay gulaha ay ka gaareen kadib qalin bedelashadoodii college-ka Global macallimiinta dugsiyada sare maamulayaasha college-da Global dhigiisa ah ee ku yaala magaalada Laascaanood iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay qayb ka yihiin qurba joog deegaanka ugu horeyn waxa hadalka munaasabada iba furay maamulaha college-ka Global Health Science Maxamed Cabdullaahi Xasan oo loo garanog yahay sayidka waxa uu faahfaahin dheeriyaha ka bixiyay marxaladihii waxbarasho ee kala duwanaa ee ay soo mareen ardaydan maanta college-ka ka qalin bedelatay iyo qaar kamid ah macallimiinta ardayda qalin bedelatay qaaligana u hurtaan inaad nala wadaagtaan farxadda aan maanta dareemayno la'aantiinana waxba nooma qabsami lahayn anoon hadalka sii badin buuraha anoon korin badana nooga sheekayn aan u bayro oo aan bilaabo xafladeena maanta muunadiisa iyo haybada marna aan isqaamin waa maamula maxamed cabdullaahi xasan sayid maxamed haddaan xoogaa yar isdul taago warbixin yar oo kooban inaga siiyo college-ka college-ka waxaa la aasaasay August 2018 runtii college-ku wuxuu ku soo beegmay xilli loo qabay baahi weyn xagga haween koorsooyinka aan bixino koorsooyinka college-ku bixiyo waa 3 koorso koorso caafimaad ah oo diploma ah koorso luqadaha ah luqadda Ingiriiska iyo koorso xisaabta ah saddexda koorsaba wuxuu ku bixiyaa waa diploma sidoo kale waxaa jira koorsooyin kale oo bixiyo oo short course train ah oo college-ku isna bixiyo maanta waxaan u fadhinaa madashan waa dufcaddii saddexaad ee college-ka ka qalin bedelata runtii dufcaddani waxay ka kooban tahay 100 arday 70 arday oo xisaabta ka qalin bedelanaysa iyo 30 arday oo ka qalin bedelanaya luqadda Ingiriiska waxaan leenahay hambaliyo inaad ummadda ku anfacdaan inaad naftiina ku anfacdaan inaad waalidkiin ku anfacdaan inaad aqoonta aad barateen ay halka kaga hadhine aad si wadaan baan idin rajaynayaa kolley aqoontu ma dhamaato maalinba waxa weeyaan albaab bay ku furtaa marka waxaad qaateen oo waxa weeyaan waa qayb kamid ah aqoontii waa jaran kamid ah waxbarashada baad fuusheen waxaan rajaynayaa ardayay inaad insha Allah halka ka sii aanbaqaadi doontaan aqoonta aad barateena insha Allah aad bulshada ku intifaaci doontaan bulshadana saameyn ee buuxda aad ku yeelan doontaan marka mar labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabada ee aynu kor ku soo xusnay darajooyinka ay kala leeyihiin oo isku dhafa ayaa hadalka munaasabada iska daba qaatay dhammaantood waxay u soo jeediyeen ardayda qalin bedelanaysa duco dardaaran iyo in ay sii wataan waxbarashadooda si ay guul uga gaaraan horumarka noloshooda guulna u gaarsiiyaan horumarka deegaankooda waxaan filayaa de kulley maanta sanadkan sanadada dambe
waxbarashadeenu maasha allah horay u socotaa horumar baynu ka gaadhnay caafimaadka dhammaan biyaha arrimaha bulshada oo dhan ganacsiga nolosha si wanaagsan baynu wadadeedii baynu haynaa wadadaana aan adkaysano wixii dan guuda ee inaga dhaxeeya ee qof walba gurigiisa iyo isagu ay u baahan yihiinna aan ka wada shaqayno waxaad aragtaan laamigeennii halka seed ahaa golihii deegaanka inoo dhisay waxa weeye iyaguna waa shaqaynayaanoo ilaahay khayra siiyo kuwa kalena waxaanu leenahay ee dayacanna wax ka qabta inaguna aan isku barbartaagno waxaynu u ballansannahay horumar ilaahay roobkii waa inoo shubay abaartiina ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu inoo siyaadiyo oo mid baraka leh oo dad iyo duunyaba aan dhibaata inaga soo gaadhin aynu ku barwaaqaysanno ilaahay haynoo shubo haynoo siyaadiyo ilaahay abaarta haynaga qaado waxa kaloo magaalada waad ogtihiin baahi baa ka jirta fara badan war ilaahay wuxuu yidhi markaad isu naxdaan baan idiin naxariisanayaa xaafadaha haddaad dhex marto waxaad arkaysaa kuwa ladan oo bariiska guryaha hortooda ku qubaya kuwa bakteeya kollay xagga naxariistuna dumarkay u badan tahay deriskana nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii aanan ka baqaynana isdhaxlaan waad ogtihiin meesha la gaadhsiiyey xaafaduhu ha isu warhayeen wixii baahan ha loo gurmado oo ha loo gargaaro hela waa qofka ugu qiimaha badan waa qofka ugu qaalisan waa qofka ummadda waxtar u ah qodobka ku xiga waa inaad hadaf iyo hami iyo meel aad u socotaan u jiraa hadday tahay waxbarashadu midaad ama iska timaado ama waalidku kugu khasbo macno badan ma samaynayso qofku waa inuu meel uu u socday wuxuu hiigsanayo uu leeyahay inta badan dhulkeenna wuu burbursan yahay dowladii kama jirto wasaarado tacliin ma jiraan cid hay'ado ma jiraan qofku waa waalidka iyo isaga iyo macalinka iyo intaa yarbu ku wareegaya xataa manhaj midaysan ma jiro marka qofku isaga ama macalin ha noqdo ama maamul ha noqdo ama arday ha noqdo iyaga idinka la idinka rabaa waxa laga yaabaa qofka maanta wax ka baranaya Norway inuu de idinka nasiib badan yahay waxba isaga u diyaarsan yahay laakiin idinku waxa soo dhan ma haysataan waxa soo dhan idinka la idinka rabaa marka insha Allah ta'ala meel fiican bad maraysaan waa halkaas aad uga sii dhawaataan ka sii dadaashaan insha Allah ta'ala jaamacadihii iyo waxbarashadii sare waxa aad baran qof walba waxaad baranayso waxa taasiirisay oo meel aad ka gaadhay ha noqdo waxa laga yaabaa qofku marba meel buu aadaya ingiriiskii waa 50% xisaabtii meel fiican kama gaarin caafimaadkii meel fiican kama gaarin marka cilmi waxa fiican qofku hatta ama diin xitaa dad baranayso inaad fanni aad ku takhasustaa fiican marka insha Allah ta'ala waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala cilmiga iyo dadaalkii aad soo dadaasheen Allah idin barakeeyo meel allaale meeshaad hiigsanaysaan oo wanaagsan oo khayr idin ku jirana marka shaqooyinka la eegayo waa mabda sax diintu waxayna baraysaa qofka shaqada loo dhibay in laba arrimood laga fiiriyo inuu shaqada karti u leeyahay oo yaqaano inuu dhaqankiisa iyo diintiisu toosan tahay haddii labadaa mid la waayo tusaale waa macallin maad mutakhassis ku yahay biology ama physics ama wax la mid ah wuxuu ku yahay aqoontiisu waa fiican tahay waa ku filay laakiin ilaalin maayo mas'uuliyadda ardadu khiyaameynaya xiisadna uu ka maqnaanaya xiisadna haaf buu jaraya xiisadna 10kiisi mas'uuliyad ahaan u wada siin maayo waayo aqoonti waa leeyahay maxaa maqan diintii iyo amaanadii iyo inuu dadkan si xalaala oo u hagar baxo hadduu xagga dhaqanka ka fiican yahay oo diinta ka fiican yahay oo soonta iyo salaada iyo habeenkii iyo uu khayr badan yahay wixii uu garanayna loo dhiibay xagga diinta waxa la leeyahay de xagga uu ku fiican yahay laakiin baadadii uu garanay إن خير من استأجرت القوي الأمين سو كمان القرآن القوي وقفك شقة كعدك أمين نو أمانة له لما وين لسه القوي الأمين وحنا كعدك أمانة دينا له هربنا دي راه مستقبل كينو بركة لا يروي تبعد قلت من سي لكن تبعد كول لكن أردت ممكن منع ومعلم خاصة ولا صهري مركا وحنا لا أردت بدل ما نقول شيء فرصة على الصين أيوه كسي فائدة يستمعني كان حق بدن يصير بدن وحق لما ملايات كسي برا نسانة هل كسي تمن قاعدة قلا عقلية عافمات كنا وحنا هاي كل يوم بعد عافمات كان تغيره كل وحنا هاي بعد عافمات كا يجنا وحنا هاي
halka idina dadaalkiina ka sii wada maanta kuwan meesha joogaan baa idina iman doontaan dadaalkiina sii wada sidoo kale fursad kale oo gobolkeena lagu soo kaliya ay jaamacadda alfa bixiso oo ah inaan haddayna social media iska dayinin intiisa kale inaad tiktok iska daysaan waayo dhammaantiin waan ogahay oo waad wada isticmaashaan ka seexan maysaan sida kliib kuugu dhiibayo baa laga yaabaa inuu waagu kuugu bariyo marka waxaan idinkula dardaarmayaa inta aad bahalkaa faraha kula jirtaan ballaadhan inta aad salsalaaxasaan hadda waxaa laga yaabaa badankiinu inay xataa intaad heerkii daawashada dhaafteen inaad u gudubteen inaad idinku iska duubtaanba marka waxay noqonaysaa noloshaada badankeedii inaad dad kale u nooshahay waxaad arkaysaa dhalinyaradii waxay doonaysaa inay kliib duubto qurux badan buuray u fuulayaan waqti bay gelinayaan si at least ay u helaan like u helaan ma garanaysaa dad fara badan ay tiktok ugu xidhmaan followers waxaa lagu soo koobaa faa'iidada aqoontu waxa weeyaan to evaluate things shaygii baa qiimo kuu sameynaya waxaa dhacday hadalkii aan idinku badini afrika waxaa ka dhacday nin baa jeena ka yimi adugu macdantii waxaa soo bartay wuxuu waayay wadankiisi meeluu kaga shaqaysto wuxuu yimi wadan afrikaana dabeedna wuxuu arkay isagoo wada maraya nin afrikaana ilmo yaro afrikaana oo ku ciyaaraya dhagax qaali ah aad u qaali ah xalwad buu watay buu ku yidhi oo xalwaduna dhagaxa igu bedel isna wuxuu qaatay maxay dhagaxii waxaa la yidhi dhagaxa lacagtii laga siiyey waxay gaadhay in ilmaha uu awowga shanaad u ahaa maamulka iyo macallimiintuna aad bay u mahadsan yihiin dee samirkana wax loo yaqaana hala badiyo waxbarashada la sii wado oo qofkii caafimaadka dhameeyey xisaabtii ha bilaabo kii xisaabta dhameeyey caafimaadka ha bilaabo college-kana aad ha loogu noqdo macluulkaagama taraan maa lagu guraye macluulkaagama taraan maa lagu guraye magaabada hashaadaa ka roon may dhanaan kale magaabada hashaadaa ka roon may dhanaan kale war waxaad qabsatid eed gacantaada ku qabsatid ayuunbaa wax kuu noqonaya wax laydiin soo sheegayey tala iyo wacyi badanna waad soo qaadateen insha allah wixii laydiin sheegayay ilaahay idigu anfaco kuwa halkaa kasii horumaro oo kasii dhaqaaqana ilaahay idiga dhigo dhalinyarada runtii waa muraayada laga daawado dalku hadduusan dhalinyaro aqoon leh lahayn runtii waa dal khasaariyo oo dhan way joogaan marka waxaan leeyahay inaad jaamacadaha aad kusoo biirtaan oo aad gashaan kolley hadaf dheer baad wax soo barateen furihii baa maanta lagu dhiibay inaadan furaha aadan tuurin marka koowaad iyo marka labaadna waa inaad guriga markaad ku noqotid hooyada iyo aabbaha aad madaxa aad ka dhukataa dadaalka ay kuu sameeyeen iyo maanta hadday kula joogaanna markaad baxaysid inaad tiraahdo hooyo aad baad u mahadsantahay dhammaan waalidku aad bay u mahadsan yihiin halganka ay soo galeen iyo dadaalka ay soo galeen aniguna aad baan u dareemayaa dhibka ay ka soo mareen maxaan kuu sheegaa mid xariif ah mid rag dee dugsi sare dhiganayo galaas 4 lagu celiyay baan arkay galaas 3 2 lagu celinayo oo la dhahayo waxa mataqaanay imtixaanka marka laga qaado waan noqday maalintii ilaahay amarkii waqtigeygii ma gaadhin waan baqi lahaayoo dee laftigeygu 7kii aan rabay inaan ka bilaabo kamaan bilaabin inaan 6 ka bilaabaan waan baqay inaan 3 meelaha iska aadaaba dee igu dhalatay markaan arkay rag waaweyn oo muddo sanadna loogu talagalay inuu socdo ardaygaasna laga siiyo shahaado ay bixiso jaamacadda alfa oo lagu verify garanayo ama lagu xaqiijinayo qofkaasi ama ardayga sanadkaa dhigtay inuu dhinaca luuqadda uu iska filaansho ka joogo dhinaca walba ay tahayba waan soo dhaweynaynaa mar walba jaamacadduna way idiin furan tahay ardayda secondaryada dhigta iyo kuwa jaamacadaha kala dhigta iyo kuwa suuqooda jooga dadka caadiga ee doonaya luuqadooda dhisaan intaba waanu ugu talagalnay barnaamijku wuu ka baxsan yahay barnaamijyada kale caadiga ee waxbarashada jaamacaddu bixiso waa idin soo dhaweynaynaa dhinacaas waxaan kaga gudbo haddaan intaan kaga gudbo jaamacadda alfa iyo programmada aanu bulshada ugu talagalnay runtii waxa weeyaan waxaad maanta joogtaan heer aada isku filaansho ka joogtaan xisaabta iyo luuqadda iyo caafimaadkaba global health science runtii bulshada wuxuu usoo kordhiyey wax weyn iyagana waxaan ku bogaadinayaa inay halkaa kasii wadaan oo aysan joojin dadaalka ilaa ay ka gaadhayaan iyaga laftigooda jaamacad loo baahan yahay oo dhankaa ka waxa loo yaqaano xanaanada xoolaha ayay barataa xanaanada xooluhuna waa daweynta xoolaha iyo waxyaalaha caafimaad darrada ku keena iyo qaab dhismeedkaas isaguna wuxuu baranayay wax loo yaqaano banking and finance Soomaaliya ka yimi dadka su'aasha maxaa u barataa waan ku yiri xanaanada xoolaha waayo waxay ugu qafilan buu yiri jarmalka xoolaha ku noolay oo maxaa xoolo geel iyo ari baan u aqaanay gabadha waxay ugu jawaabtay
aabbahay baa waxa uu leeyahay xeryo doofaarada lagu xanaaneeyo xeryahaas waxaa aabbahay kaga baxa qarash aad u fara badan qarashkaas waxaan rabaa inaan aan qarashkaa ka gudo oo anigu aan xoolaha daaweeyo doofaaradaas dadka dariska la-ahna aan ayagana u daaweeyo oo lacag ka qaato ayimka keliya ama ujeeddada keliya gabadhaasi facultiga u baranaysa marka halka waxaa kaga aragta haddii aad wax baratid waa inaad ujeeddo u baranayso ujeeddadaas waa inay sheegayso inaad waxaan hadhowto ka jiba keentid aqoontu markaa waxay leedahay waxyaalo fara badan oo aad ku dhiiranaysid oo aadan ka baqaynin markaa waxaan kula dardaarmayaa cilmiga aad barateen luuqadaha iyo caafimaadka waa waxa ugu wanaagsan luuqadda inta badan budiga u ah aqoonta waxaa loo yaqaanaa waa luuqadan ingiriiska hadda caalamka haysta laakiin luuqadda carabiga innaga markii hore inoo fiicnaan oo qur-aanku ku qoran yahay marka luuqadahana barta waxa la wixii idinka horiya maana barta ilaa aad barataan xitaa inaad farsamada gacanta aad ku dartaan waayo meel lagaa soo galaba hala waayo waa inaad wax walba ku shaqo tagi karaysaa gabdhuhu waa inay bartaan wax loo yaqaano sida cilaanka loo saaro sida makeup loo sameeyey caafimaad taasi waa hambalyo hadhow iyo hadeerba waxa dambe aad ka qalin jabin doontaanna waa idinla qaybsan doonaa waan idinkala qaybgeli doonaa haddii alla idmo haddaynaan isu iman hambalyada qalin jabinaha dambe waad sii haysataan waa idiin sii qadimaya taasi waa mid ta ku xigta inaad qalin jabisid oo aad marxalad ka gudubto oo marxalad kale u gudubtaa runtii macno fiican iyo macno weyn bay leedahay ardayduna waa laba nooc marka halkan oo kale la joogo qof waxaa la weyn oo hadafkiisu uu yahay in uu xidho koofiyadan geesaha leh mar inuu xidho waxa ugu weynaa ugu socdaana waa intaa qofna waxa weeyaan waa qof aan u socon koofiyadan ama goonkeedii ha wadato ama koofiyad ha noqotee laakiin doonaya wax ka sarreeya iyo wax ka fog inaad koofiyadda xidhataa macno weyn oo fara badan waa astaan waa sax laakiin exactly qofka aad tahay iyo waxa aad taqaanid iyo waxa aad tahay ka turjumi maysa koofiyaddu waxaad tahay adigaa ah aqoontaad tahay adaa ah shakhsiyadaada iyo dadaalkaada iyo kartidaadu markaad tagto goob kale ee waxbarasho ama markaad tagtid goob kale oo shaqo ayuunbay soo qaar ka mid a ardayda qalin bedelatay ayaa dareenkooda cabiray waxayna soo jeediyeen maasooyin buraanbar nashiidooyin iyo khudbado luuqada ingiriishka ah oo dhammaantood ka turjumaya waxbarashadu qiimaha ay bulshada u leedahay dabraayo waayahaad la daristahay docda aad ka joogtee daliilkaagu yuu noqon danig iyo maleyntae qorshe yeelo kuu dana qofna dunida muu dhalan isagoo haldooroo dadku wada qiraayo xidhan dadka sharaftee Today I am very pleased to stand in front of these honorable people. It's my first time to appear in this well-populated area. I am greeting here my students, teachers, audiences, parents, and spectators. dhammaan martidayda sare baan salaamayaa oo dhammaan ardaydayda sharfan baan salaamayaa salaan ka bacdeedna mowlaaba mahad iskale mahad ilaahiyey kuleejkeenu waa muhiim oo mahad ilaahiyey kuleejkeenu waa muhiim waxaa maamulayo يسعدني في هذه المناسبة الجميلة والتي تفتخر بها من معلمين وآباء وأمهات أنا أقدم هذه الكلمة بمناسبة تخرج الانتقال حياة جديدة تختلف عما كانوا عليه ويعود الفضل ذلك لكم أنتم أيها المعلمون شكرا لمن علمني كيف أمسك قلمي وأخذ حروف اسمي شكرا لمن أدى ضرب العلمي ugu dambeyn waxaa hadiyado iyo shahaado sharaf la guddoonsiiyey ardadii kaalmaha hore ka gashay kuleejka global health science iyo guddiga qabanqaabada munaasabada ee GMG4 intaasi kadibna waxaa shahaadooyinkooda la guddoonsiiyey dhammaan ardadii sanadkan ka qalin bedelatay kuleejka global ee sanadkan dhamaysatay cabdifataax maxamed holhollasaan